You're not very used to speaking. Englishta aad uguma hadli jirin. Assalamu alaykum kusoo dhawaada YouTube-keena caalami official. Qaybtan waa qaybtii turjumida muuqaalada aan soo turjumi jiray. La soco muuqaal. Just keep in mind that learning a new language takes time, patience, and practice. Gabadha hadalkeedu waxay ku bilowday just keep in mind maskaxda ku hay learning new language dhigashada luuqad cusub it takes time inay waqti qaadato patience samir and practice iyo ku celcelin muuqaalkan wuxuu la socdaa muuqaal hore bana qaybtiisa labaad. If you're interested, I can share some tips with you that could help you improve your language skills. Gabadha waxay tiri if you are interested dad xiisaynayso I can share some tips with you waan kula wadaagi karaa xogaa talooyin ah that could help you kuwaasoo kaa caawin karaya to improve inay sare u qaadaan your language skill xirfadaada luuqadeed. Sure. Should I also learn more vocabulary? Please explain this also. Gabadhii kalena waxay tiri sure oo ay ka wado yes ama ha mar kastana lama isticmaalo yes Englishta laakiin bedelkeeda yes ayaa la isticmaalaa oo ay ka mid yihiin bedelkeeda sure of course kuwaasoo kale la isticmaalaa bedelkeeda halkaad ka oran lahayd instead of saying all time yes waayahay waxay hadalkeeda haddana sii raacisay should I also learn more vocabulary miyaan dhigtaa sidoo kale erayo badan please explain also this fadlan tanna sidoo kale sharax. Well, the problem is not with the vocabulary. The problem is with your hesitation. Waxay tiri well hagaag problem dhibku is not with your vocabulary maaha erayadaada dhibku the problem dhibku is with your hesitation waa diidistaada ama waa labalabayntaada erayga hesitation micnihiisu waxa weeye something that you do not like to do waa shay aanad doonayn inaad samayso macnihii Soomaali wuxuu noqonayaa ka labalabayn unbuu noqonayaa. The hesitation that you face when you're trying to do something new. Waxay tiri gabadhii the hesitation waa ka labalabaynta that you face taasoo aad wajahayso when you trying markaad isku dayayso to do something new inaad samayso wax cusub. Because you're habitual of speaking in your mother tongue. Kaus maxaa yeelay bay tiri you habitual waxaad caadaystay to speak your mother tongue inaad ku hadasho luuqadaada hooyo ereyga habitual means micnihiisu waxa weeye something that you do over and over and over oo markaa hadhow caado ku noqda ayaa loo yaqaan habitual. I mean, you are not very used to speaking in English. Waxay tiri I mean waxaan u jeedaa you're not very used to speak English. Englishta aad uguma hadli jirin. Meeshan waxa cusub waxa ku jira used to. Used to waxa loo isticmaalaa markaad sheegayso wax qof uu samayn jiray waqtigii la soo dhaafay. I used to footballer. Waxaan ahaan jiray ciyaartoy kubadda cagta ciyaara. I used to like to watch football games. Waxaan jeclaan jiray inaan kubadda cagta daawado. So wuxuu qofku qaban jiray hadda laakiin aanu qaban laakiin markuu waqti hore soo qaban jiray.